farmaajo anu kursiga kugu ma haysano madaxweyne kursiga kugu ma xawaadla kugu ma haysto nadaf allah hadu alla yahay naga aal war naga xawla hadu alla yahay dadka kula jooga fil Soomaaliya oo dhagaha wax kugu sheega oon hataa tuula kulahayn hiiraan oo ana hiiraan ka soo kacay kule oo ana hiiraan xildhibaan ka ah leh bal fiir inta meeshu degan yahay intuu leeg yahay waxa uu yahay ma garanaysan kartaa garab ku noqon karaa cod ma heli kartaa meel habeen ma fadhiisan kartaa koob shaam ku shubi kariya war bal kuwa garabkaaga taagan oo ku qosla oo nacamlayaasha bal fiiri ya waxaan kugu la dardaarma xawaala dhaaf xawaalaha daawaydo Soomaaliya waydi xawaalaha daawaydo farmaajo Soomaaliya waydi farmaajo dadka fil Soomaaliya joogo oo garbaaga ah oo meesha kugu simo waxa waa la nacay aduguna hadaa meesha ka tagto kala kuma leh wallahi subxi hadii lagu raacday kala in ku lahayn meel adu orodana ma leh xawaala hiiraan ku kano ku dhigi karaa badarka iska cun ya waxaan ku leeyahay farmaajo kursigaaga xawaala uma socdo kursiga xawaala dhaaf waa lagu sheegay ugaasa ku sheegay imaama ku sheegay islaama abgaalana ma hasi imaamku ka soo weydii bal imaamka agtada weydii xawaala xaq xawr rabaade xawaala adiga wuxuu rabaa waxna ka dhax raba maane abgaal ma dirirsanin aqoonyahan inta abgaal ma dirirsanin duqowda abgaal ma dirirsanin ugaasada ma dirirsanin laakiin waxa dagaalsan waa farmaajo iyo xawaadle shirkan jiraad oo ku saabsan yahay waayahan barnaamijyada socdo Hirshabeelle iyo dawladda dhexe iyo beesha xawaalinta ka dhaxaysa Facebookyada yaani baraha bulshada muxuu ahay wareegayay waxaan leenahay Hirshabeelle shalay waxbay ayadoo dulma ahayd oo aan laga heshiin baa wax mugdiya la dhiso daruufta maalintaas oo ay keentay haddaan dib looga wada hadlin oo iftiin aan looga wada hadlin oo wax la isla ogola ayna ka soo bixin yaanan isku dambaabin laba gobol oo deris ah inaan hayna labadii gobol oo deriska heedaan ku kala joogaynaa dulmi ma qaadanaysa hiiraan 30 sano dulmi gooniya qabtay 3 sano iyo barkaan dawladda Xasan Cali Khayr hogaamiye dulmi dheeriye qabtay 6 jeer biyo baxa ku soo baxday fataado ku soo baxday 5 jawaan oo faaruq ah oo hiiraan abaal gud uga dhigay 20 milyan oo jawaan ah oo nootile hiiraan biyo waa isaga xiri karnay dawladda nacaybkeeda dagaalkeeda waa aragnay tan hadda in Hirshabeelle qasto oo xawaadla ay kula dirirto oo mugdi ay cawsto baan ka iftiiminayna farmaajo ka waantow madaxweyne Soomaaliya ta wadanka adigu malihid dalkana adigu malihid Soomaalina la mid ah tahay hogaami baan ku nuri waxaanu hadaa cadaalad ad gobolada iyo shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed mas'uulka ka tahay cadaalad hadaa nagu hogaami wayso cadaalad darad la kulmi aniga intaasaan ku leenahay raiisul wasaare cusub waxaan leenahay kii hore hiiraan raad uma reebin dulmigii hore raacin ka digtoonow ummadda reer hiiraan waa dad dawladeed waa dad dawlad shacab waa shacab masaakiina 30 sano Soomaaliya ogtaabay dagaal Soomaaliya qabinay ku jirtay mid kale oo adkaysan mayso waxaan leenahay dadkaas wanaagsan dawladda jecel leega meesha ka soo aasustay ah meeshii cadawga Soomaaliya markay soo qaxaan hiiraan ku soo qaxjineen ku tashan jireen ah yaan la beerdarayno xaqeedoodeen ida qabsan qolyahan xaq soor la baxay waxaan leeyahay war hadaad xaq sooroysaan shalay markii abgaali xawaale isdoor ku tashanayeen oo madaxweynaha qaadan caasimada iyo madaxweyne ku xigeen abgaalo qaatan xawaale saasaan qaadayna leedeen soo marqaati ka maadan haynaha waxaad ku soconaysaan waa dulmi qof waliba meeshuu wax ku leeyahay wax la leeyahay dulmi xamar laga dhoodhoobay oo been lagu la wareegay oo joor lagu la wareegay ma shaqeynayo mana ka shaqeey doono shacabka beesha xawaale kor iyo hoos midna loo qarimaayo wabillahi tawfiiq shirkaas ujeedadiisu wuxuu yahay ma wax lagu dulmayo waa mid runta lagu sheegayo waa mid danaha ummadda looga hadlayo waa mid wax lagu dhisayo waa mid farta lagu taagayo cid kasta ee wax qaldaysa ama wax dhibayso farta lagu taagayo waxa la rabaa nin walba inuusan hilmaamin miisaanku leeyahay cidna aan la dulmin ujeedadu waxay tahay Hirshabeelle markii horeba saluug adag baa laga qabay si adag baa saluug laga qabay ayadoo saluug laga qabo oo loo adkeysan waysan yahay la dul qaatay laga yimid wixii dhacay yaa waxa timid laba rog
laba rog in laga qaado waxyaabihii la cuuscuusay meel la isugu keenay ee ummadda lagu midaynayay in laga rara halkay tiilay bini aadanku wuxuu soo dhoweeyaa qaybaha nabadda waxaan leenahay Hirshabeelle yaan wax loo dhibin wixii la cuuscuusay yaan la kala daadin cidda aan reerka matelin oon raalli laga ahayn oo gacanta u taagan tahay gadaalna eegayso ka baqayso ha ka waantoobaana waxa deeqa waxay reerku raalli uga yihiin deeqe ha ka waantoobaano taas ayagaasaan waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ummadda ayuu mas'uul ka yahay nabadda deeqda ayada la rabaa inuu horseedo Soomaalida waa saddex fidna doon dawlad jecel hurdaay fidna doon waxa la rabaa inuusan raacin dadka dawlad jecelka ah dawlad ku noolka ah dunta Soomaaliya leh dadkaan inuusan laayicin madaxweyne Farmaajo dadka inuusan laayicin hurdaaye cidna waxuma dhibo ina laga kicin saasuu nabadgelyo ku yahay ina laga kicin hoos markaan u soo noqdo Hirshabeelle waxba isku darsatay tilmaamaad jiray dhib kastaba jiray wax lagu heshiiyaa jiray meeshii lagu heshiiyeen laga soo baadi goobe ahayd geedi fara badan oo wax ku dhismayno wax duminayo in lala gala faraha waa cawaaqib xumo ha laga waantoobo war dadka diriska dhaliya ka dhaxayso abtiya aysan waay in la isku diraa waana dhibaysaa aqli saliim oo isku dirkooda badbaadiyaha la yimaadiino qaasahan markaan soo noqdo beesha xawaadla waxaan ma rabto inay cid wax u dhibto ma rabto niman matali karin oo tala ehelkeeda ahayno inuu u dhuunto ka dhuuntar ma rabto waa ka soo horjeedaa inay Soomaalida la noolaatay rabto nabad bay ku baaqaysaa in nabad lagu wada noolaaday raalli ka tahay nin 45 kiilo 120 kiilo looma saariyo nin halay saariyalaha jiro kaasna in loo aqli celiyaa la rabaa dadku kala ma dhama nidaamka wanaagsan waa kii wax dhisayo kii wax duminaya ma hawaada wuxuu ka soo jeedaa intuugu u taliso dadan la dirsano u taliyo dadan tala ehelkeeda hayno oo u taliyo ummadda maanta jirta inuu la noolaado oo wax dhiso oo wax hagaajiyana diyaar u yahay baaqaasan soo jeedinayno oo baaq caafimaad qaba oo baaq ciidan wax u dhibayn oo baaq wax dhisaya oo baaqan wax duminayn arrinkaas cid kasta oo arrinkaas aan soo jeedinayna uu taabanayo ha ka qaadata qaybtay leedahay ma aha dulun wax ma hagaajiyo qaybta dulunka ha la joojiyo nin walbana miisaanka uu leeyahay waa yaqaan waxaan rabaa si gaar ah inaan u eego dadka ilmaha aabbaha iyo hooyadu ay dhaleen kan ugu yaraa ugu dulun badan aabbahu ka daba qaylinaya asoo xasarad qabo hooyadana waa ka daba qaylinaya asoo xasarad qabo yarka ka weyn waa ka daba qaylinaya asoo xasarad qabo ma garanaysaa waxa ka maqan si baas u xeeraansanaya dadka yar karaan kurada nabadda qaaliya war nabadda hal la qaato nabadda qaaliya war nabadda hal la qaato nabadda qaaliya war nabadda hal la qaato wabillahi tawfiiq Hirshabeelle shalay xawaadle kuma gelin heshiis madaxweyne markaa joogay ayaa hiiraan gaar ahaan xawaadle dad ka xaday dadku xaday ayaa shabeellada dhexe kula midoobay heshiis oo hal qodob intiisa kalena ay dhinneed halka qodob wuxuu ahaa saddexda xilo ugu sareysa gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka saddexda qabiil oo Hirshabeelle ugu waaweynu inay kala qaataan halka qodob ayay kala saxiixdeen xawaadlana markaa raalli kama ahayn heshiis kale oo buuxa ma jirin awood qaybsi baarlamaan ma jirin mid golo wasiir ma jirin mid ciidamada ma jirin
midda canshuuraha iyo nidaamka kale oo dawliga ah ma jirin waxaasoo dhamma waa dhinaayeen meeshan ka sugaynin arrintaa la saxo waxa soo yeertay si kala haddana mugdi lagu dhisayaa mugdi wax lagu dhisayna ma rabno xawaadla ma ogola xawaadla wuxuu diidan hiiraan waa diiday mana aqbalayno heshiis xalaal oo maalin caday la galo oo cidna aan lagu dulmin oo si cadaalad loo qaybsado maaragtay maamulkaas waxaan ahayno xawaadla aqbali doonaa huma jiraan joogo oo xil raadiska waxaan leenahay daayira carbeedka joohir jooga xukumi maysaane dadkaad xukumi lahaydeen way diiday dadkan cadaalad bay rabaan waxay rabaan maaragtay nidaam xalaal ah oo dhisanay heshiis lagu yahay bay rabaan intaas waxaan leeyahay nimanka jooga joohir dawladda federaalka madaxweynahana waxaan rabaa inaan fariin u diro madaxweynuhu xisaabka Soomaaliya hadda dawlad ku tahay waa 4.5 wax la yiraahdo sidaas lagu heshiiyay muddo dheer kadib burbur kadib saami qaybsiga Soomaaliya waa intaas 4.5 tane waxa raacayo lamida siday u dhisayeen isteediyadu waxay ka turjumaysaa 4.5 xisaabka ah way xisaab dawladnimo oo muwaadinka codkiisa intuu dhiibto madaxweyne ku doortaa kama jira dalka adiga laga rabay inaad gaarsiido waanad ku fishilantay waxaan ku leeyahay marka Soomaaliya 8 gobol bay ahayd 8 kamid ah hadda waa ka maqan tahay dawladdaada Hargeysa iyo Burco Boosaaso iyo Kismaayo hadda ma xukumo dawladda aad hoggaanka ka tahay ma xukunta hadda 4 gobol oo kala joogta haddana waxaad bilowday inaad faragelin ku sameeydo isteediyada oo heshiiskoodii aad ka hoos qaado arrinkaas marka waa arrinkii magacaada dawladnimo ma bahayside arrinkii magacaada meeshuu ku dhima lahaa weey waxaan ku leenahay marka farmaajo Hirshabeelle faraha kala bax dadka jooga asaa heshiinayo state-ka asaa dhisanaya xisaab sax oo xuquuq iyo sharci oo ku dhisanaya la bax haddaad kala bixi weyso hiiraan wuxuu noqon doonaa gobolkii shanaad oo ka baxa maamulkaada warkaas hoos loo sheegi maayo 3 gobol kugu soo hari doontay magacaada oo dhinto arrinkaas faraha kala bax baan ku leenahay farmaajo waa tala walaalnimo Soomaalinimo siyaasiyiin mar horaad kala tagteen shacabka kalsooni yar kugu qabay shacabkii reer hiiraan arrinka joohir hadaad ku dhiirato kalsoonida way kala noqdeen intaasaan ku sheegaynaa horta madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegaa farmaajo hiiraan waa laga farmaajeysnaa 15 maalmood ka hor wixii ka hor waa laga farmaajeysnaa laakiin hadda waa laga forjeysan wallahi oo billahi talaa farmaajo waa loo forjeysan dad heshiiyay ayaga wax meel isla dhigtay laba gobol degan walaale waxay ku heshiiyeen maanta in meel kale inta loo raro oo waxaan loo joogin ciyaal suuqnimo kale inta la sameeyo wax aan raali ka nahay mala waana wax laga gubto waana wax qadiyada diidayso wax islaamnimada diidayso heshiiska oo qorey asoo maqal oo jira asoo muuqaal oo jira asoo siixan u yaala wax qarsoodi amale awala saluugsanayn asoo saas aan saluugsanayn hadan maanta maxaan qabatay meeshii ka sii hoos iyo dhulka hoostiisa maahano anaga joor waa ka safri karnaa laakiin wax u sheega fidnada meesha socota xawaadla leh masaameynaysa abgaalo adigana gobolka Banaadir way rabtaa wallahi oo billahi oo talaa wax joor lagu soo cilina gobolka Banaadir oo ka qaylinaysa aan rabaa in dhulka lagu daro waxa leeyahay asgarabsanno walaalayaalo waxaan ku heshiinay aan shalay meel marino yaanan cid anaga na koras Iskandir abgaal Cismaan iyo xawaadle waa diris intaas oo kiiloomitir diriskiin waxay shalay ku heshiiyeen waxaan rabaa inayna cid qodqodo iyo cid meel kale ciyaal suuqnimo inaan marnaba lagu dayo wassalaamu calaykum waraxmatullaah